Assalaamu calaykum. Noloshan adduunku sideeda waa kadeed oo lagama waayo caqabado iyo dhibaatooyin dib ku riixaya, mararka qaarkoodna kula degi karaba. Hase ahaatee qofka oo markasta canaanta deegaanka uu ku nool yahay iyo caqabadaha ku xeeran waxay u sababaysaa kadeed kale. Canaantaas iyo dhaleecaynta badanna waxba u soo kordhin maayaan. Taa beddelkeeda waxa qurux badan oo xikmaduna ku jirtaa qofku wixii uu awoodda u leeyahay ee uu wax ka qaban karo inuu wax ka qabto, wixiise awooddiisa ka baxsan inaanu isku mashquulin. haddaba qisada ninkan Chadif Bayang waa mid cajaa'ib badan. ninkani keligii wuu beeray kayn dhan oo 550 hektar ah, balse qisadiisu halkaa kamay bilaabmin. kayntaasina si kadis ah kayn kumay noqon. sidaad ogaatid qisada kayntan muuqaalkan daawo haddii aad ku cusub tahay channelka nagu soo beer muuqaalkana like saar mahadsanid. Chadif Bayang waa nin beeraley ah oo ku nool waqooyiga India. Chadif wuxuu ku noolaa jasiirad uu webigu ku fataho, fatahaadaas oo sababtay inuu dhulku saxaro isku bedelo. xayawaanadii ku noolaa jasiiradaasina ay yaraadaan. fatahaadanina waxay sababtay nabaad guur. Chadif halkii uu iska fadhiisan lahaa misna canaanan lahaa fatahaada webiga iyo nabaad guurka uu sababay, Chadif wuxuu go'aansaday inuu dhibtan wixii awoodiisa ah ee uu wax ka qaban karo inuu wax ka qabto. waxa uu bilaabay inuu maalin kasta jirid ka mid ah geedihiisa intuu goosto inuu u lugeeyo meel ilaa 2 saacadood u jirta, isagoo baadi goobay dhul maran oo aan dheer lahayn. dabadeedna halkaas ayuu ku beeri jiray jiridii uu soo goostay. haddii uu midho helayana uu ku beeri jiray. Chadif arrinkan si maalinle ah ayuu u waday. waxay ka mid noqotay nolol maalmeedkiisa caadiga ah. wuxuu hawshan waday 40 sano ilaa ay geedihiisii kayn isku bedeleen, taasoo hadda 550 hektar ah. Chadif isagoo ka warramaya hawsha bilowgeedii waxa uu yidhi, bilowgii arrintani aad bay igu cuslayd, waqti badanna way igu qaadan jirtay, balse hadda way ii fududaatay. maxaa yeelay hadda midhaha waxaan ka helaa geedaha. mararka qaarkood midhuhu geedaha intay ka soo daataan bay iyagu iskood u baxaan. sannado badan kadib markii uu Chadif bilaabay beeridda dhirta ee goobtiina kayn isku bedeshay, xayawaanadii baa ku soo laabtay. waxaa hadda ku nool maroodi, shabeel, karanuug iyo xayawaano kale. ninkani hawshaa dheer iyo halganka markii uu ku jiray cidimay aqoon, balse maalin maalmaha ka mid ah Chadif oo kayntiisii dhex jooga waxa ku arkay nin sawir qaade ah. Chadif wuxuu haystay markii hore nin ugaarsi u yimi kaynta, balse markii dambe ay isfahmeen. ninkii sawir qaadaha ahaana wuxuu ga warramay qisadiisii. intaa dabadeed ninkii sawir qaadaha ahaa ayaa mid ka mid ah wargeysyada dalkaasi ku soo qoray maqaal uu kaga warramayo qisada cajiibka ah ee Chadif. saas ayaanu caan ku noqday oo uu dad badanna tusaale u noqday. madaxweynayaasha iyo mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa abaalmarino guddoonsiiyey, madallo badanna waa lagu asumay. Chadif hadda qorshe kale ayuu wadaa, kaasoo ah in isaga iyo saaxiibkiisii sawir qaadaha ahaa ay doonayaan inay qoraan buug ka warramaya sida dhirta loo beero. waxa uu rabaa inuu bulshada ku wacyigeliyo muhiimadda deegaanka iyo faa'iidooyinka badan ee ku jira dhulbeerista. Chadif isagoo ka warramay riyadiisa iyo meesha uu hiigsanayo waxa uu yidhi, riyadaydu waxa weeye inay jasiiradaha Majul iyo Johrat wada cagaar noqdaan, nabaad guurkuna ku yaraado. hawshan waan wadayaa kamana daali doono ilaa aan ka dhimanayo. qisada Chadif waxyaabo badan ayaa laga baran karaa. Chadif isuma dhiibin caqabadihii faraha badnaa ee hortaagnaa, iskuma mashquulin waxyaabihii awooddiisa ka baxsanaa. hase ahaatee mas'uuliyad ayuu saaray. waxaanu go'aansaday inuu wax ka bedelo deegaankiisa isagoo adeegsanaya fursadihii u bannaanaa. markiiba hawl weyn kumuu dhaqaaqin, balse maalin kaste geed ama 2 ayuu beeri jiray. arrinkaas oo uu sannado badan waday misna aanu ka caajisin. aakhirkiina geedihii ayaa kayn isku bedelay. camal yar oo la joogtay ayaa ka qiimo badan hawlo waaweyn inta la isku qaado kadibna laga hadho ama laga caadso. nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee wuxuu yidhi xadiis uu macnihiisu ahaa, ilaahay camallada wuxuu ugu jecel yahay kuwa la joogteeyo haba yaraadaane. mar kalena nebigu wuxuu yidhi ku dadaal wixii ku anfacaya adigoo ilaahay tala saaranaya hana caajisin. muuqaalkan intaasuu noogu eegyahay. haddii aad wax ka faa'iiday asxaabtada la sii wadaag si ay iyaguna u faa'iidaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.